Maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta dil ku xukuntay saddexdii eedeysane ee loo haystay kufsi iyo dilkii Caasho Ilyas. Maxkamadda sare ee Puntland ayaa xukun ku raacday maxkamaddii darajada koowaad ee Garowe iyo maxkamadda racfaanka oo hore dilkan ugu soo xukuntay eedeysanayaasha. Bulshada Soomaaliyeed oo si weyn iyo si wadajir ah uga naxday dilkii foosha xumaa ee Caasho Ilyas Aadan ayaa sidoo kale si wadajir ah u soo dhaweeyay go'aankan maxkamadda. Inkastoo ay jiraan qaybo ka mid ah shacabka oo sheegay in aanay weli arrinkan ka nasanayn inta dilka la fulinayo. Dhanka kale, eheladii eedeysanayaasha ayaa cadaalad darro ku tilmaamay go'aanka dilka, iyagoo cuskanaya qodobo sharciyeed oo ay sheegeen in aanay ku daraynin kiisaska isticmaalka hidde-sideyaasha DNA-ga. Wixii ka soo kordha kala soco alool.com Garowe.